iftiishay naruromanka naftayda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تدقالي قد الهانتي ملك سادون كاكو جوكتا واحد لاني سولو ودا إن مر لبعض المقال السب ولا الكور دادن halkana ka daawaso barta YouTube kulana ari YouTube waxa laga codsanaya hadii aad ku cusubtay kanaalka oo tahay markii koowaad soo martido ina kanaalka subscribe dhiig asaad kaga keento muuqaalka sidoo kale aad like kana sidoo kale dhiig asiya naad kaga keentaan soo meedan gar aad baad maasantiin in ilaa maanta YouTube kale sameey subscribe saaru ma leeyahay soo marka de baahidu ma dhamaato marka subscribe marka waa inaad noo kiishtaan oo noo miistaan oo aad noo labaysaan 3 aad isku raacsaan soo meedan garan aad baad maasantiin maanta barnaamij aad u xiiso badan farxad badan runtii muuqaalada noocan oo kale markaan duubayo waxaan sidahdaa talow goormaad adigu gaashaamo doonta oo aad ka bixi doontaa iskaabuladan baas balaayadan lagu habaaray baas imika meedika soo habaaray imika maxay ka khaldan bal loo soo duceeyno December teeda lagama yaabo in anigu iskaabula sii haado oo balan soo meedan garan maalintu ilaahay soo gooyay hambaliye taagan ma aragtay hambaliyo laba iyo 50 kun oo hambaliyo ayaan ilaa maanta YouTube ka furanay ilaa maanta aan wadnaa maanta la gaadhay balnoo duceeya aan meeshan ka kacno horaad badbaasatay taswayga kabtan runtii walaalkii Cabdikariim Cali Shaax iyo marwadiisa runtii hadal hayn badan bay baraarujada ka dhaliyeen taasna waa kaliftay in mar labaad ka hadlo horad muuqaal uga diyaariyay hadeer rawanigan ka diyaarinay sababtan uga diyaarinaya waxay tahay runtii gabadhan guursan raba Cabdikariim Cali Shaax ayaa runtii hadal hayn badan dhalisay sababta hadal haynta badan u dhalisay waxa weeyaan dadku way isweydiinayaan reer Hargeysa nanto yani reer Burca reer Gaaba reer Muqdisho reer Galkacyo reer Tigtiga sidee caadada ahayd fanaaniintu badanka way sameyn jireen waa reer yar ama reer labada mid ha tan waa idin haya tumaashidii horta soo dhaw baan leeyahay ku soo dhaw bulshada in badan baa lagu hadal hayn doona halkan dadkaanu keenna mar walba wala hadal haya sababta loo hadal hayaan waxa weeyaan qof yani bulshada aad looga xiiseeyo oo la jecel yahay oo kalsooni badan kaftan badan maad badan xaraabo badan kal furan ayaad marwadiisa noqotay soo ma dadka Cabdikariim Cali Shaax waa legend dadkan anigu sida khaaska u taageero ayuu kamid yahay muuqaalkan haduu gaaro isaga laftiisa inaad comment-kan ka dhaxo hadii kale ha isku iman doona goobaha lagu caawiyo markaas aynu ka wada tashan doona soo ma garan haddaba walaalka Cabdikariim Cali Shaax iyo marwadiisa waxaan leeyahay in horta ilaahay maalintina khair iyo bashbash barwaaqaheed ku gaarsiyo wala alaana isma meersan laakiin se dunta isku xidhay duntuna iyagu ka xidhan ma qashaysa sadra duntuna iyagu ka xidhan marka dunta isku xidhan dadku iska caamadeen weekend maanta yani ay ku jirno weekend bilaamaya makan maanta ay ku jirno sida igu maqaala ayaa la qaban doonaa meherka sida caadi magaalada Hargeysa ka dhici doona intana waa reer America waxa ka timid dalkaas Mareykanka duwashadii waxaan leenahay ku soo dhawow dadka badankooda waxa isweydiinayaan fanaan kasta abwaan kasta YouTuber kasta wuxuu guursadaa dad yani in dalka ka maqan laakiin horta waxa isweydiistaan oo meesha aydan ka maqneen in calafkii Ilaahay meesha uu yaalo qof walba ciishkiisa iyo calafkiisa halku galay ayuu Ilaahay marinay taa maskaxda maanta ku haya walaalka Cabdikariim Cali Shaax waxaan leeyahay horta inaad argaaliye horta talawan ku haya dhaliilna waan ku haya dhaliishaan ku haya horta ka hor in ay taladan ku hayo ayaan ku siinaya maadaama uu dhalinyaro tahay oo fanaana oo fankiisa aad looga xiiseeyo geeyga Soomaalida joogto dhan runtii fankaaga halka ka sii wada ku leeyahay fankaaguna runtii wuxuu daara ma uu shida dhalinyarta intii yani ugu heesaha shidan ama heesaha taqaan heesaha xulan taqaan ayuu ba heesaha xiiseeyay waayo waxa tahay ruucada wallahi la ismacaasiyo ma sha Allah keep going baan ku leeyahay talada aan ku hayo ama dhaliisha aan ku hayo ayaan ku dambeynaya dhaliisha ku hayaaba waxay tahay runtii gabadhan dhawaan guursanayso midda koowaad waxa weeyaan isma qabtaan ismeedaan mehersan reerkooda kumaysiin way jirtaa inaad istoonateen oo dadka aad iska gaclooteen oo waqti iyo maalin aad istoonaysaan aad sacaymateen way jirtaa laakiin meesha waxaan ka maqnayn runtii inuu reer bay ka dhalatay aduna sidoo kale reer baad ka dhalatay ciidla ama geedka maad bixintay iyaduna sidoo kale marka halkan marayso
inantii iyo adigii fiidiyoyadiina baraha bulshada galaan idinkoon isqabin oo aydan yani weli nin iyo naagti aydan noqon oo aan weli xalaal isku ahayn waxaa laga yaabaa inay hay badan dhalato dadka qaar inay idinku dhagaan baa suuragal marka ifan haddaad fiidiyo duuba soo qoftaadii dhammaan baad guursan rabtaa daha ilaahayba inuu guurka yani inuu dhici iyo in kaleba de ilaahayba og soo maa marka inaad is asturtaan oo aad muuqaaladiina idinku private idin hayaan maxaa soomaalidii u diiday inay wax walba privacy ka dhigtaan privacy maxaa soomaalida kaga dhacay halkan maraya wuu heblaha halkan martay heblaha halkan cartay heblaha halkan bootay heblaha halkan cartay heblaha halkan jirtay heblaha halkan kuftay uun baynu ku jirnaa eeg waxyaalaha privacy-ga uu qurux badan aad bay u qurux badan eeg waxa fiican qofkaagu inuu privacy ku ahaado xogaha aad wadaagaysaa inuu privacy ahaado fuuliyada aad wada duubaysaan privacy sawirada aad wada gelaysaan privacy wax walbaba inay idin haadaan private ayay ku qurux badan laakiin public soomaalida waxa loogu taaglayay ruuxna private ka dhigta hadhow wala wada ooyeen waxa oranaysaa heblaaya fiidiyowga haysa hebla fiidiyowga haya wuxuu geeyay inta public ka wada dhigeen marka goormaad saxan goormaad khaldan ولا قاعد ذكر على الشاه وان عقل له وان عقل وصاحبه وان وحقرده من عقاله من dadku in badan ay xiiseeyeen socodii kabtankiisa iyo maadiisa iyo sidoo dadka ugu qosriyay sidoo dadka ugu heesaba marka waxaan leeyahay taladan ku wada waxa weeyaan inaad qofkaaga aad ilaashato oo aad idinkiga iyadoo kaliya aad gaar ku hayo sama aad ma sitin tan muuqaalka iyo muuqaalka inuu ku kulno walaalka wardaadan iyo inagoo isku duuban oo idinkaga tagaya halkaan marada soo gaadhay kanaalka subscribe dhiga askaga keena muuqaalka dhiga askaga keena share dhiga askaga keena tan muuqaalka المقالة من كوكل حاجات كده. See you soon.